waa shirweynihii saddexaad ee Britain ay u qabato Soomaaliya oo weli ka soo kabanaysa burburkii xoogganaa ee gaadhay. Sanadkii 2012 ayaa la qabtay shirkii ugu horreeyay, kii xigayna waxa uu dhacay sanadkii 2013. Shirkan oo ay ka soo qaybgeli doonaan in ka badan 40 dal iyo hay'ado caalami ah ayaa looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda, dastuurka iyo kobcinta dhaqaalaha. Danjire Nicholas Kay oo ah ergeyga gaarka ah ee Britain u qaabilsan Geeska Afrika isla markaana qabanqaabada shirka ku jira ayaa weydiiyay waxa shirkani uu ka dhigan yahay. This is a great opportunity I think for Somalia and for all the international friends of Somalia. Waa fursad weyn oo Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamku ay ku wada hadlayaan. Waxaana la samayn doonaa 3 arrimood. Kow, in la hubiyo in Soomaaliya lagu soo jeediyo indhaha caalamka sanadada soo socda. 2, in la isku raaco waxa la hiigsanayo iyo waxyaabaha ahmiyadaha leh ee 4 sano ee soo socota ee baarlamaanka iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ay qaban doonaan. 3, waa in xilligan la bilaabaa in Soomaaliya ay iyadu la wareegto mas'uuliyadda ka saaran amniga. Waa in ay la wareegtaa mas'uuliyadda ciidanka qaranka, dhaqaalaha iyo dib u dhiska dhaqaalaha. Waa in Soomaaliya ay iyadu ka haysaa gaariga oo ay dib u habaysaa hanaankeeda dhaqaale. Bulshada caalamka ayaa u aragta in Soomaaliya la siiyo fursado maadaama ay ka soo kabanayso burburkii ku dhacay dowladnimada, sida uu qabo Ambassador Nicholas Kay. We all know that countries recovering from conflict from years of collapse and state failure. Waxaanu dhammaan ka warhaynaa in dalku uu ka soo kabanayo sanado badan oo burbur ah iyo fashil dawladeed. Waddanku wuxuu u baahan yahay in waqti la siiyo. Ma jiraan wax durbaba lagu hagaajin karo. Waana muhiim in bulshada caalamku ay ka taageertaa Soomaaliya dhaqaalaha. Britain waxa ay sii wadi doontaa tixgelinta ay siinayso Soomaaliya. Waa shirkii saddexaad. Haddii loo baahdana lama yaabayo in shirar kale loo qabto Soomaaliya mustaqbalka. Dalka Britain oo si weyn loogu mashquulsan yahay doorashooyinka iyo in Britain ay ka gurato midowga Yurub 2 sano ee soo socota ayaa haddana waxaa muuqata in Britain ay doonayso in guud ahaan dalalka kale ee caalamka ay la yeelato xiriir dhinaca dhaqaalaha ah. Danjire Kay ayaa weydiiyay haddii dalkiisu uu ka fakarayo heshiisyo dhaqaale oo Soomaaliya uu la galo. We will be expanding our relations with many countries and many regions in the world, so you'll see more of Britain internationally. Waxaanu sii ballaarin doonaa xiriirada aan la wadaagno dalal badan iyo meelo badan oo dunida ah. Waxaad arki doontaa Britain oo caalamka la xiran doonta, ganacsiyo badan, heshiisyo ganacsi ah oo badan, sidoo kalena la wadaagi doonta dalalkaasi dhaqanka, sayniska, waxbarashada in la isweydaarsado. Waxaas oo dhan waa wax aanu jecel lahay in Soomaaliyana aan la wadaagno, sababtoo ah xiriirka aan la leenahay Soomaaliya waa mid xooggan, waa taariikhi. Waxaa dalkan ku nool 100,000 oo Soomaali qurba joog ah oo shaqeeya isla markaana wax ku soo kordhiya dalkan Britain, sidoo kalena ku xiran dalkoodii Soomaaliya. Sida aan sheegayna waxaanu nahay dad si weyn isugu xiran. Su'aasha ugu adag ayaa ah sida Soomaalidu ay u dhaqan gelin doonaan heshiisyada London lagu gaari doono maalinta Khamiista ah iyo sida ay uga dhabayn doonaan horumarro ay ka sameeyaan dhinaca amniga, siyaasadda, doorasho dalka ka dhacda sanada 2021 iyo hagaajinta hanaanka maaliyadeed. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA.